wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa si rasmi ah uga gudoomay jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Sacuudi Arabiya gaar ahaan mandaqada Sharqiya lacag gaadhaysa $350,000 iyo waliba qalab isugu jiray taandhooyin agabka taayirada lagu buufiyo mashiinada wax lagu laxamado iyo waliba laba koronto dhaliyaal kuwaasoo loogu talagalay dhismaha wadada Ceerigaabo geesta kale wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland waxa uu ka gudoomay oo kale jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Holland siba gobolka Hague lacag dhan $10,000 waxaana jaaliyadahaas u soo wakiisheen in wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland uu ku wareejiyo gudoomiyaha hay'adda qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa uga mahad celiyay jaaliyadahaasi waxaan maanta halkan ku gudoomay oo aan ka qabanay gudoomiyaha aadan nugaal gudoomiyaha waxa weeye qandaraasyada $10,000 oo laga soo diray dalka Holland dadkii soo diray aad baan ugu mahad celinaynaa wadada Ceerigaabo loo soo diray insha Allah taala wadadana waan ku wareejinaa hadda la ka dhigo maareeyahan u dhiibayo halka fadhiya inuu akoonka ku shubo insha Allah taala taasina waxa weeye in lagu shubo akoonkii aad bay dadka reer Soomaaliland lacagta soo diray ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan jecelahay inaan xuso raaciyo arrintan munaasabadatan lacagta iyaduna saddex ku tago kuna foojarkeeda halka yaalo iyo naga soo gaadhay meesha la yiraahdo Damaam Saudi Arabia reer Damaam oo runtii markii aan u tagnayna aad u soo dhaweeyay ballan qaadayna waxay bixiyeen kaliya ma bixin lacagtani qalabna way soo raaciyeen teendooyin wadooyinka loo adeegsanayo soo raaciyeen aad bay ugu mahadsan laba teendoo waaweyn sidoo kale air compressor ay noo soo raaciyeen lagaga shaqeynay qalabka iyo mishiinkii lagu alxamayay marka aad baan ugu mahad celinaynaa dadka reer Soomaaliland kuwii bixiyay markii kuwii hore u bixiyay waa mahad celinaynaa ma ilaawayna insha Allah taala waxaan leenahay dalkiina waa ka qayb qaateen gudoomiyaha hay'adda qandaraasyada qaranka ee Soomaaliland mudane Aadan Xasan Nugaal ayaa sheegay cidda lacagtaasi uu soo dhiibtay Holland ka timi gobolka Hague odayaasha uu ka mid ahaa ama ninkii lacagta soo diray Cabdi Xirsi Maxamed Cawad ayuu ahaa lacagtaas dabadna shalay baan soo qaaday waxaan aad ugu mahad celinayaa maareeyaha iyo wasiirka oo hawshan wadada aad uga shaqeeyo runtii niyadda dadka Soomaaliland ee jooga qurbaha iyo kuwa gudaha joogaba aad bay arrinka runtii wadadaas Ceerigaabo iyo Burco isku xiranta waa riyo ay dadku oran jireen waxaan filayaa inay run noqoto maareeyaha hay'adda wadooyinka ee Soomaaliland ayaa isaguna rajo fiican ka muujiyay halka ay marayso wadada Ceerigaabo waxaan jeclaan in wax ka tilmaamo meel fiican buu marayaa runtii marka xagga Ceerigaabo laga soo bilaabo wuxuu ku soo dhow yahay meel gambi la yiraahdo waxaan rajaynaynaa bisha 6aad inuu ceelafeyn uu soo galo hadii Ilaahayna yaan rajaynaynaa hadii Ilaahayna gaarsiiyo shaqadana intii ay heedan ka sii laba laabno waliba xagga kale marka laga eegana inay waridaad gaadho hadii Ilaahayna gaarsiiyo oo iyadana ay xagga ka socoto dhexdana meel ay ka socoto gar adag iyo way jiraan iyo ceelafeyn iyadana ay soo socoto waxaan rajaynaynaa 2015 inaan wax weyn oo runtii lagu farxo oo mujtamaca reer Soomaaliland ay ku faanaan ku naaloodaan aanu gaari doono insha Allah injaas aad u wanaagsan shaqo u socoto hadii Ilaahay nala garab qabto jaaliyadaha kala duwan ee Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada dibadda ayaa maalintii timaadaba waxa ay kaalin weyn ka qaadanayaan horu socodka qaranka Soomaaliland iyagoo si mug leh uga qayb qaata dhismooyinka kala duwan ee ka socda wadooyinka kala gedisan ee Soomaaliland waxaana qurba jooga Soomaaliland ee ku dhaqan wadamada dunida lagu xasuusan doonaa kaalinta ay ku leeyihiin dhismaha wadada ballaaran ee Ceerigaabo ee isku xidha gobolada Togdheer iyo Ceerigaabo Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.